السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هابون إذا هنتي بس صاحبتك وحنا channel كاميرا فيلمس هديات ku cusubtiin oo ay tahay boqoshadiina koobaad fadlan channelka subscribe saar notification kana fursa aad u noqoto daawadeyaasha ugu horeeya ee ku xiran channel kamera films inta aynu ka nimaadno saaxiibayaal ku soo dhawaada mowduuc gaar ah oo maanta runtii arrin laga naxaa fanaan khadarkeeyo ayaa lagu xiray wadanka Itoobiya iyadoo lagu haysto wax alaaliya wax lagu haysto aan loo sheegin ama wala shaacinin balse xaqiiqadu waxay tahay inuu markuu airport-ka saa ugu degay in xaajida askar loo soo dalbay iyadoo oo isla markuu airport-ka saa ugu soo degay baa la geeyay jeel kamida jeelasha Itoobiya si kastaba ha noqotee fanaaniinta Soomaalida ayaa u ducaynaya fanaan khadarkeeyo iyadoo ay ugu ducaynayaan inuu Ilaahay ka soo fududeeyo amaba madaxda Soomaaliya in ay la hadasho oo ay dabeeto sida lagu soo daayo ay 170 fanaaniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin isku soo wada duuba xadhiga fanaaniintu waa mid soo jireen ahayd ilaa weligeed ba soo jirtay iyadoo oo ku talagal iyo waxyaabo ay sameeyaan caqabado noocaas ba kala kulma sahaate khadarkeeyo waxa uu tagay wadanka Kenya inuu ku soo qabsado showgaas oo uu rajeynayay inuu noqdo mid aad iyo aad u ballaaran balse waxa uu kala kulmay xadhig iyo cadaadis aad iyo aad u xun si kastaba ha noqotee khadarkeeyo ayaa ahaa fanaan Soomaaliyeed isagoo waqtiyo dhawaato ku sugnaa wadanka Somaliland isagoo fanaaniinta Somaliland halka kula qaadanaya cashooyin iyo cuntooyin iyo waqtiyo kala duwan balse nasiibka ayaa halka geeyay arrinka khadarkeeyo ayaa noqday arrin ula kaca iyada oo marka caburin aad iyo aad ugu weyn lagu sameeyay fanaanka oo aan la sheegin wax lagu haysto balse xadhiga lagu la kacay oo ahaa mid aan oran karno waa qalad iyadoo aanay sheegin dawladda Itoobiya waxa ay ku xidhay fanaanka si kastaba ha noqotee fanaan khadarkeeyo ayaa isagu aan ka hadal wali oo ku jira jeelka iyadoo ay aanu fursad u helin inuu ku hadlo ama ka jawaabo arrimaha ama eedeymaha lagu haysto si kastaba ha noqotee dawladda Soomaaliya ay fanaaniintu ka codsanayaan iyo Somaliland in ay kala hadlaan xadhiga fanaan khadarkeeyo iyadoo ay fanaaniinta Soomaaliyeed ay u soo marinayaan codad iyo fiidiyoyo ay u soo duubayaan fanaan khadarkeeyo oo markiisa hore ka soo kicitay wadanka Kenya ayaa waaye badan ku sugnaa magaalada Hargeysa isagoo uu muddo 2 week ku dhow magaalada Hargeysa ku sugnaa ugu dambeyntiina waxa uu socdaalay xagga iyo wadanka Itoobiya iyadoo marka uu sidaa uga degay diyaaradiiba isla markiiba xaajada askar ay la boodeen iyadoo aan waran ama warqad maxkamadeed loo keenin oo la oran waxa lagu haystaa iyadoo ay isla daqiiqado yar kadib la shaaciyay in fanaan khadarkeeyo lagu xiray wadanka Kenya iyadoo aan la sheegin goobtii lagu xiray ama halkii uu la geeyay markii xaajadaha lagu qaaday balse waxa la sheegaya inuu ku xiran yahay wadanka Itoobiya si kastaba ha noqotee xariga ula kaca fanaan khadarkeeyo ayaan wali laga haynin wax cadeymo ah iyadoo oo ay 170 dadka YouTube-ka soo dhigaya ay leeyihiin Ilaahay ha fududeeyo inkastoo anagu aan leenahay Ilaahay ha fududeeyo arrinta khadarkeeyo oo gaadhibadiba ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtoba iyo madaxda Soomaaliya iyo Somaliland si kastaba ha noqotee khadarkeeyo ayaa isoo caqabad weyn kala kulmay xadhiga lagu xiray iyadoo uu ku jiro jeel kamida jeelasha Itoobiya balse aan lagu booqan karin oo aan u tagi karin fanaan iyo wax iyo dad shicibayba wad ku maasantiin saaxiibayaal muuqaalada aadin nala daawataan ee bandhiga Mera Films mar walba waxaan naga xasuusinaa inaad channelka subscribe saartaan gambaleelka furtaan si aad u noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ee ku xiran channelka Mera Films waayahay aan arrinkeena hore uga soconay fanaan khadarkeeyo isagu asliyan waxa uu ka soo jeedaa wadanka Soomaaliya khaasatan Muqdisho isagoo uu waaye badan ku sugnaa magaalada Muqdisho markii dambe uga haajiray xagga iyo Kenya ugu dambeyntii khadarkeeyo waxa uu ku noolaa muddo lagu qiyaaso 4 sano ugu dambeysay xagga iyo Kenya si kastaba noqotay fanaankan ayaa madaxa kor u qaaday 2016 waqtiyada ay soo gashay fanaan khadarkeeyo ayaa markuu madaxa kor u qaaday ama uu heesiisa ay qorxeen 2016 waqtiyada ayaa waxa uu haajiray ama uu tagay xagga iyo Kenya isagoo ku degay Nairobi isagoo bartaa ku soo saaray heese aad iyo aad u badan ayaa mar socdaalo badan oo ku galay wadamada Yurubta Asia iyo wadamada kaleba heesayo badan oo ku soo duubay ayaa jiray iyaguna ugu dambeyntii waxa uu isugu soo biyeeshutay inuu Somaliland imaado isagoo aan weligii Somaliland iman ay tahayna markiisii ugu horeysay ugu dambeyn Somaliland waxa uu dhaafay xagga Itoobiya isagoo uu socdaalkiisa ku marayay sanadkii cusbaana damcay sana inuu ku qabsado show
iyadoo dadka qaar ay sheegayaan inuu 14 February-ga uu rabay inuu show ku qabsado balse xaqiiqadu waxay tahay in sanadka cusub uu showga raacsan rabay isagoo aanu sticker iyo wax toona la soo dhajin balse runtii waxaan oran karnaa ama 14 February-ga ayuu show ku qabsanayaa ama labada 2020 tuutugii imika ay soo dhaafay muddo maalmaha yar kooban laga joogo ayuu ku qabsan rabay show si kastaba ha noqotay arrinkan ayaan arrin ula kac fanaanka iyadoo aan warqad iyo waarantoona loo keenin oo lagu xiray wadanka Itoobiya Khadar Keyo isagu laftirkiisu arrinkan waxa uu waayay fursad uu kaga hadlo isaga oo arrinkan runtii ay fanaaniin badan iyo YouTube badan ay dhaleecayn saarayaan balse Khadar Keyo isagu afka muu furan kama hadal waxaan dawladda Itoobiya kama hadalin saraakiisha Somaliland iyo Soomaaliya toona ay kama hadal waayahay saaxiibayaal mawduuca Khadar Keyo insha Allah intaasaan rabnay inaan ku soo gabagabayno haddii channelka Bandhiga Meera Films aad ku cusubtiin oo ay tahay boqoshadiina koobaad fadlan channelka subscribe saar gambalelkana furo si aad u noqoto daawadeyaasha ugu horeeya ee ku xiran Meera Films aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo saaxiibayaal intaasaan kaga tagaya insha Allah taala muuqaalkan xiga iyo channelka waadin subscribe saartaan